howlgalkani qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ku burburiyeen xaruntii qaadista lacagaha baadda iyo maxkamad beenaadkii shacabka ay ku dhibaateen jireen maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab. Howlgalka oo ciidanka xoogga dalka ay sameeyeen ayaa waxaa si gaar ah u sameeyay ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Gorgor iyo ciidanka gaarka ah ee xoogga dalka. Deegaanada ay ciidanka howlgallada ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Shaam Garre, Raqayley, Raydab, Caanooley iyo tuulooyin kale oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose. Ujeedka howlgalka ayaa ahaa burburinta meelo kooxda nabadiidka Al-Shabaab ay ku dhibaateen jireen shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba ka galabsan iyo baacsiga horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka baxsadka ee argagixisada. Howlgalka ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha ciidanka gaarka ah xoogga dalka Cabdullaahi Mustafa Cali Madaala Qaran iyo taliyaha ururka 3aad guutada 17aad ee kumaandooska xoogga dalka Gorgor Gaashaanle Suul Nuuge. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa intii howlgalkaasi qorsheysan ay ku guda jireen waxa ay soo qabteen dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab, kuwaasi oo haatan ay ku socdaan baaritaano lagu kala saarayo. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalkaasi sidoo kale waxa ay baaritaano dheeraad ku sameeyeen guryaha ku yaala deegaanada ay howlgallada ka sameeyeen, iyaga oo ka baaraya inay ku dhuumanayaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad iyo sidoo kale in halkaasi lagu keediyo waxyaabaha qarxa oo argixisada Al-Shabaab ay u adeegsadaan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa inta badan gobolka Shabeellaha Hoose ka sameeya howlgallo qorsheysan oo laga hortagayo dhagarta kooxda nabadiidka argixisada Al-Shabaab ay u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed.